gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hawd warsame Faarax Soomaaliya ayaa saaka min subaxdii booqday xarumaha dawladda ay ku leeyihiin xarunta gobolka Hawd ee magaalada Beligubadle iyada oo ugu horeynba socdaalkii u horeeyay ku maray dawladda hoose ee magaalada Beligubadle taasoo xogayaha dawladda hoose uu ka siiyay warbixino kala duwan sida diiwaangelinta iyo qaybaha habsami u socodka dawladda hoose waxa uu halkaasi u leeyahay caafimaadka cadaaladda iyo ciidamada booliska warbixino kooban halkaasi uu kaga dhageystay howlwadeenada ku sugnaa xarumahaasi ka dhisan gobolka Hawd ee magaalada Beligubadle wax dhibaato kale jirtaan ma jirin meesha si fiican loo shaqeysaa sidoo kale iyadana maadaama meesha gobolka xeer ilaalintii kale waa maqan tahay oo xeer ilaalin wanaagsan ama baadhayo wanaagsan oo booliisku la jooga ma jiraan kiiska maalin badan baa soo yar marwadooda marka iyadana halkan xeer ilaalin ama cid wakiil xeer ilaalin oo fiican iyadana in la siiyo goobtuna waa goobtii caafimaadka wasaaradda caafimaadka waxaa ugu magacaaban tahay MCH laakiinse waxay u shaqeysaa sidii isbitaal iyadoo oo muddooyin marka sanad iyo 6 bilood wax dawaa iyo wax qurnaa midna aan shaqaalo waa shaqaalo ku shaqeynaya frontier 4 qof baa inta kasii jooga 13 qof baa joogay laba askar ku oran iyo min laba shaqaalaha diiwaangelinta شنو وضعنا قلنا بهان تجمده في الكبد شنتها جوه صدق جوه وأنا لقى جوه ترفعها كمبرها يوكما صدقها جوه حلم بطول زيادة بعضهم جوه نوع يكسبين حلم تمام بدون درس حفيز كان وهو الكي شركة يقولها ها يحفيز كله ونوبنا بعضها جوه بينه كبنوي لان سفي عبوش بينيان وانتي gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hawd warsame Faarax Aadan ayaa waxa uu helinayay Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar xogayaha dawladda hoose iyo saraakiisha ciidamada ee kala duwan socdaalkaasi oo halka ku soo maray isaga oo kuurgelaya xaaladda nololeed ee ku sugan yihiin wasaaradahaasi iyo qaybaha ay u shaqeeyaan dhinaca caafimaadka TB-da ayaa waxa uu u ballan qaaday dadweynaha in lagu wacyigeliyo sida qiimaha badan ee u shaqeyso laanta TB-da ee ka dhisan xarunta gobolka Hawd ee magaalada Beligubadle iyadoo dawooyin bilaash iyo caafimaad dhameystiran goobtaasi lagu hayo rasaab ku-xigeenka gobolka Hawd warsame Faarax Aadan ayaa ballan qaaday waxyaabaha ka dhiman adeega bulshada iyo baahiyaha aasaasiga inuu dhameystiri doono inta karaankiisa إن شاء الله هالخطوة سوق الرئيس لا يدور كأنه نجحتي مركب هرب هاي الكلام قلب دقيسة كوسان الحالة ولا صحيح ولا حليلية محمد نبك في سنة محكمتها استكاف اليوم أنا بك في سنة حنا هالكلام بس هذا يا وقولنا ما هذا يا مواد كوي هذا الحق له أنا سلام يا وحليه ورد ورد وحلا كرشين حسين وحتى حسين إلى الجبين دولة الحاجة سيدنا إلى الوسارة ما أحمد محمد عوالة تلفزيون قرقة جمهورية الصومال اللي أنا قبل كهبل قبل ده